dadweynaha qaarkiis waa ka digtoon yihiin halista coronavirus oo wacyigelintu waa gaartay muhiim ayayna u arkaan isticmaalka maaska afka iyo sanka lagu daboosho iyo in la kala fogaado isgacanqaadkana la joojiyo. Guddiga wacyigelinta qaran ee coronavirus ayaa agabka looga gaashaanto cudurkan u qaybiyay wadayaasha gaadiidka, rakaabka iyo dadka ku lugeynayay isgoyska iyo jidadka degmooyinka Shibis iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir. Agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Maxamed Axmed Cantoobo ayaa hay'adaha dowladda Soomaaliya uga mahad celiyay ka qayb qaadashadooda wacyigelinta coronavirus. degmooyinkiisa qaybta bari oo ay ka kooban yihiin Kaaraan, Yaaqshiid, Hurwaa iyo Shibis. waxaan soo marnay degmooyinka Shibis iyo Yaaqshiid, hadda waxaan ku sii soconaa Hurwaa, hadda waxaan joognaa Kaaraan. waa maalintii shanaad oo aan si joogto ah halkan ugu imaano maamulka degmada iyo annaga aan ka wada qayb qaadano wacyigelintan maamulka gobolka Banaadir, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda diinta iyo waqaafta iyo wasaaradda caafimaadka iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan hadday noqoto bulshada rayidka waa ka wada qayb qaataan annagoo fulinayn awaamirta ka soo baxday madaxdeenna madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre. awaamirtaas oo ahayd in dadka la gaaro degmo waax laan tabeelle ilaa daris guri cid walba inay gaarto xogta ah ka hortagga cudurka coronavirus wacyigelintiisa. Sowdo Maxamed Gaabow oo ah gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Kaaraan ayaa tilmaamtay inay sii wadi doonaan wacyigelinta cudurkan si ay hoos ugu dhacdo tirada dadka ah ee xanuunkan qaadaya. waxaan halkaan u taaganahay oo aan u joognaa inaan sii wadno oo aan joogteyno wacyigelintii aan uga hortagaynay cudurka safmareenka ah ee dhibaatada baan ku haya caalamka ee COVID-19. waan ku faraxsanahay inaan mar walba annagoo shaqada ku jirno ay kormeerkii soo gaaraan. waxaan rajaynaynaa bulshada degmada Kaaraan inay wacyigelintaas si fiican ay u gaarto wax badan ay ka faa'iidi doonaan. Agaasimaha xiriirka warbaahinta gaarka loo leeyahay Cabdulqaadir Maxamed Cadde ayaa sheegay in bulshadu ku baraarugtay halista coronavirus. waxaan sameynaa wacyigelin volunteer waxaan soo joogtiin waxaan ku wareegnaa maalin ay keeno laamiyada, suuqyada, dugsiyada, xaafadaha taasoo annagoo gaarsiinayna wacyigelin. waxaa ilaahay maadiisa inay wacyigelintii aan wadno maalmahan hirgashay dadka face maskiga aan qaybinayna ee ayagina ka soo doonanaya meesha waxaan ku qaybinaa kun face mask oo wajiga afka lagu xirto kunkiiba waa naga dhamaaday si degdeg ah. guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus ayaa degmooyin ay ka mid yihiin Kaaraan, Shibis iyo Yaaqshiid ee magaalada Muqdisho maanta waxay ka wadaan wacyigelinta ay dadka u soo jeedinayaan oo la xiriirta xanuunkan sida dhaqsaha ku faafa. waxay qaybiyeen maaski ama marada afka iyo sanka lagu xirto lagu aaminsan yahay inay xanuunkan celin karto iyo sidoo kaleeto wacyigelino la xiriira nolosha dadka iyadoo looga digayo xanuunkan iyo in dadku kala fogaadaan isbees badan la qaato. dhammaantoodna waxay yihiin waxyaabaha la doonayo in lagu wacyigeliyo coronavirus oo adduunka si weyn ugu fiday, Soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu saameynta ku yeeshay. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka.